haddaad ummadda aad wanaag u samaynaysid ilaahay dartii ugu samee haddaad cilmi baraysid ilaahay dartii u bar haddaad u ixsaan samaynaysid ilaahay dartii ugu samee haddaad u shafeecad qaadaysid ilaahay dartii ugu shafeecad qaad haddaad wax dayminaysid ilaahay dartii u daymi waxaad dadka u qabanaysay wanaaga marka u horraysa waa inaad u qabataa alla dartii aaway cajiinkii waa la tusay wuu ku tufay aaway dherigii asagoo karaaya wuu ku tufay toban usoo gabadhii buu ku yidhi cajiinkaan ma cajiimin kartidee muufa dubtooy naag muufada furta ku aho aad u taqaana u yeela buu dhahay nabiga sal alla alayh wasalam cajiin hal xabay laba xaba la dhajinaayo way yaaban tahay weli naagta xaafadda uga muufa dubid badan leen dumarka qaarna markay saa ogeen waa gubtaan gacantay ka soo bixiyaan ma yaqaanaan way ka kuuskuusantaa qaarna daqiiqad baa waxay ku soo saarayaan 10 xab iyo 20 xabo taasoo kale in loo yeertay ahayd tii baa loo wacay muufadii waa la dhajinayaa darigii waa karayaa yaa la soo dhajin hala soo guro buu dhahay nabiga bas asoo dabka saaran 10 baa loo soo geliyey saxaabadii way baahnaayeen dhagax baa caloosha ugu xirnaa 10kii soo gashaba nabiga weli afkiisa ma saarin sallallahu alayhi wasallam 10 buu soo geliyaa muufadiyaa la futiyaa waa la jijabiyaa marqaa lagu shubaa waa cunaan waa baxaan 10 kale la soo geliyaa waa dhargaan waa baxaan 10 kale la soo dhagax waa la iska furfuray walaalayaal 10 kale imaanaysa waa cunayaan waa baxayaan 10 kale imaanaysa way cunayaan way baxayaan ilaa jeeshkii iyo saxaabadii oo dhan hal qof oo baahan la waayay ay kala dareereen weli afka ma saarin sallallahu alayhi wasallam weli afkiisii ma saarin laba dhagaxa ku xirnaa muslimiinta u daran qofku ay muslimiintu uu ka murgaa marka hore nabi maxamed saasuu ahaan jiray sallallahu alayhi wasallam nabi maxamed iyo intii ka dambaysay abubakar cumar cuthmaan iyo raggii noocaas ahaa xaalkoodu saasuu ahaa madax waxaa soo baxday wixii ada lagugu talagalay guri ku dhisataa madax waxaa soo baxday wixii ada lagugu talagalay gaari ku iibsataa wixii adi aad lahayd buu naag ku guursanayaa rasuulku weli muufada afka ma saarin sallallahu alayhi wasallam ninkii ugu dambeeyey ee cunay buu ahaa rasuulka sallallahu alayhi wasallam ilaa hogaamiyaasheenu saa noqdaanna iyaguna horumar iyo qeyr gaari maayaan dhibka iyo faaqaasayna ku jiri doonaan ilaa ay u soo laabtaan habkii dadkii wax maamuli jiray cumar caamir ramaad markii la gaaray oo dadku baahidii ay ka badatay mimbarku istaagay radiyallahu canhu timirtii la keena muslimiintu u qaybinaya laba yaan loo qaadan buu leeyahay iyo saddex way baacan baahi baa jirtaa sanad dhibaato waay haddana waxay wadaago xabad u qaybsada dadkii uu soo ugu dhex wareegaya mimbarku ku istaagay go'buu xiran yahay calooshiisa qaylisay Umar maxay la qaysay min al-juu' baahi daraadeed muddo ka fikira xabadii timir uu helo agoon ma joogu leeyahay uu siinaya jibaan timir hadduu soo helo ay taan ma joogta garoobo ma jooga waa lagu taxayaa garoobadii maanta way baahan yihiin meeshaasay sambuus ku gadayaan qof madax ah oo danahooda fiirinaya ma jiro gabdhihii ayagoo uur lay soo qaxayaan jidkaa lagu dhalaa ayagoo uurlaa lagu kufsadaa waddada yaa keena madaxdaa keentay markii ilaahay laga baqaa fiicnayd intaa ilaahay lagu dadaalaa fiicnayd waxaasoo dhan waa la isweydiinayaa qof kasta oo alla madax ka dhiga waa la weydiinayaa cama starcaa wixii la raaciyey cumar waa ooyey maxaad la oysay buu yidhi ciraaq baqdaad wuxuu yidhi rabtiga geelee ku kufa anaa lay qabsaa maalinta qiyaamo waa dhagxaanta daasa in laga qaaday ahayd xaalkaasaa la rabti kufaa laga ooynaa gabar jidka ku dhashay oo canugeedii dhintay meelay ku aasta lahayn aa la sii kufsaday haddana tiya maanta dan iyo daxa laga lahayn qof kasta intuu barkin dheeraystay daata ugu saraysa dunida ka dhistay si wax lagu waaraayo waylun likulli humazatin lumaza alladii jamaca maalan wacaddada yaxsabu anna maalahu akhlada inuu ku waarayo meel ummada maanta ugu dambayso inta uu dhinto karfan la geliyo yaa waxa ugu qiimaha badan ee loo sameeyay mataqaaniin calanka qaranka inta janaasiisa la saaro yaa muusiga wax loo sameeynaya asqarna waa loo imisa iimaan leeyihiin waa saacado macduudaad oo aad u yar weeyaan iimaankooda fiiri iimaankooda eeg maxay yiraahdeen qaaluu lan nu'thiraka calaa maa jaa'anaa min albayinaati waaladii fataranaa faqdi maa anta qaad inamaa taqdii hadihi alxayaata addunyaa inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun lan nu'thiraka calaa maa jaa'anaa min albayinaat waxaad doonta samee kaa doorsan mayno kugu doorsan mayno nimcada ilaahay kitaabka ilaahay uuna siiyey
hanuunka ilaahay uuna siiyey waxyaabaha ilaahay uu nagu manaystay iimaankan wallahi inaanan ku doorsanaynin aanan kugu doorsanaynin waxaa doonta samee ma laga yaabo in aan kaa doorbidno iimaanka inaan kala ujeesano iimaanka oo aanu ku raacno lagama yaabo waxaa doonta samee googoyn maahane na gub dab nagu dhexrid maanta cadaab baa loogu hanjabayaa laakiin inay baqaan maxaa u diiday iimaankii baa jirkoodii dheexay waa saacado yar yar 70 sano dadka jira ya 40 sano 60 sano adoomihii allow aaway caqligiinii aaway jirkiinii iimaanka 30 sano 60 sano muslimiinta aatiin muxuu jirkiina u dheehi laayahay xubnihiina looga arki laayahay islaamku wax loogu qaban laayahay waa maxay ciyaartan ciyaar baa naloo sameeyey ciyaar baa ilaahay uu noo uumay adduunka uu noo keenay waa maxay meeshan ku soconnaa waa maxay lan nu'thiraka calaa ma